هدوان لي بقيمها مادة قصر كي كلمة سجانت هدوان لي ببلسه وحالين هاي الصوماليين صومالي ومد نمضوا وقرن وامر waxay ku taagan tahay midnimada Soomaaliya sida darteed uu istaag calanka Soomaaliya يدها وجهرية وحن عدك كوات سيرية ومجا كمان قابضة كواتية بشير حاج أحمد وكم بدأ يرجع كالصوماليات أبوه كعام وحفلة ده كانت سكتت بشير عندي هذا حرفتكم على العلنية إلهي ينصر تقلي هوشان يدا وحوا ما قب صومان هدون إلهي ينصر تقلني الحمد لله إلهي بصر تقلي cid kale oo sheegay karta ma jirto intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii hawshan mataqaanaa nagu gacan siiyey qabashadeedii oo hiil iyo hooba nala garab taagnaa oo gabdho leh oo mataqaanaa dhalinyaro leh oo culimo leh oo odayaal leh oo ganacsato leh oo cid walba leh ayagana waan u mahadcelinaynaa waxaan leenahay barakallahu fiikum allah idin barakeeyo sidii aad noo taageerteen ilaahay ha idin taageero aakhiriya adduunba intaas kadib waxaan rabaa wax yar inaan sheego yani maamulkan Waama State wuxuu ka mid yahay maamuladii Soomaalida la dhisayay qaar bas bay ku bilowdeen yani qaar waxay ku bilowdeen iyagoo mataqaanaa hawl dheer la soo maro intaasoo bilood shirar badan socdeen qaarna markii dadkii deegaanku ay dareemeen inay wax u baahan yihiin bay dhisteen kadibna waxay u raadiyeen shuruucdii iyo sidii lagu sharciyeyn lahaa iyo qaabkii wixii bay u raadiyeen maamulkan wuxuu ka mid yahay maamulkii dadka deegaanka mataqaanaa eryadaas deegaan markii ay danahooda eegeen oo ay dhibaatada haysata arkeen oo mataqaanaa culays ka saaran ay arkeen
ay isku tashadeen oo yiraahdeen warbal maamul baa ka fiican horta aan maamul samaysano inagoo maamul samaysanay aan markaa raadsano mataqaanaa wixii inaga maqan xuquuqiyo sidaas oo kale marka waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inay noqdaan kuwo ku toosan wadadii Soomaalinimada ahayd ee ayna noqonin kuwa Soomaalida garab socda insha Allah ta'ala sidaas aan rajaynaynaa waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمريكنا هو على قيده قبضوين كياركتدا كوات مرتدا هو يعني قفك مرتدا كارين انت لايك أي وام وجدت قفك أي مرتي جريني سو دول كذا حديل بوغضو دول كذا سليم دول كوسو رويان وامو صومالي كسوكو ديجانا ده محبر واقع صورة كتحي أقول أنت لايك أي دول لا ما أنت أي نصيبه يلتينا ديجانا فرا بدن عرب كعب كله فناصية شكاية مرتدا وحكوا الله يا الشيخ عبد الرحمن الشيخ عمر بلوغ وإسنا كم إذا وحكرت كسومان شيخ وام استيد وحويا وقبلة الصومالية أما كونفرت الصومالية قبلة وخيرات كبدن سيدا درادين وحا هوري رجي هفرا يجور ريي وام استيد وحويا وقبلة كونفرت الصومالية وبواقع بدن وحويان marka sida daraadeed waxaan ugu soo dhaweynaynaa dhammaan dadka oo dhan in oday iyo dhalinyaro iyo ganacsato iyo culimo iyo gabdhaha waxaan leenahay ku soo dhawaada xafladda waamaystay inta kadib xafladda waxa weeye way soconayaan dad badan baa nooga dambeyn doona marka waxaan leenahay anigu maadaama hadda aan ku qora kaliya inaan maartay soo dhaweynta waxaan leenahay welcome to Wama State kusoo dhawaada dhammaantiin Wama State marka insha Allah ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu noqdo maamul cadaalada waxtar leh ummadda mideeya maartay oo eexa aan lahayn ayaan rajaynaynaa marka kusoo dhawaada Wama State assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وهرسل ريان قيبها كل دواي وصحفي بيلين وما يستيد وحيلين فرسمي كانوا كاميرمانو فنانين علومو وحن رجينا مركيني تحي أستان آد وقالئة meel walba oo aad arkaysid in loo dabaaldagayo dad baa hoggaan u haya dad baa garab taagan mar haddaad qabanqaabadii hawshii aragteen maamulada waddanka ka jira intee in la eg ayay soo dhaweeyeen ma og tahay maamuladii horuu maray qaarkii dhexe dhammaantood bayna usoo cabatumayaan Wama State sidaa darteed maamulka gayiga galmudug ayaan markana soo qabanaya oo isna ka mid ah waxgaradka caawa lagu cazumay waxaa ku hadlaya magaca galmudug state حسن موسى أو كم إذا وحكرت كواحد بدنا نبيفر كواركتير لكن جديد سيوق قصته حسن يا مهد علينا مركو هوري كبعدي حنو مهد علينا مامور كان Wama State حفلة الله قبنا مامور Wama State دتك قبنا هابيي iskugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa bahda saxaafadda oo ka qayb qaadata horumarinta Soomaalida waxaan sidoo kale mahadda ka reebaynin dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan loogu talagalay inay xafladan daadiyaan inta ka bacdi anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda dowlad goboleedka galmudug halkan caawa waxaan soo dhaweynaynaa maamul goboleedka cusub ee ka curtay koonfurta Soomaaliya ee loo bixiyay Wama State inta ka bacdi waxaan leenahay madaxweynaha maamulkan asagana ma hadda ka reebi mayno madaxweynaha Wama State oo u istaagay xilligan inuu noqdo madaxweyne maamul goboleed waxaan leenahay Wama State waa maamul goboleed
عندي كرنوا معمول قولات كودن بيا حتى أنت أنا عرقني هل كان حفلتي سلوا فدي عاوي سيدا درتين وحان لنا هاي وامو ستيت سودو وتغيرنا أنا وكوهاد لي معمولك جالية معمول قولات كحمد دولة قولات كقلمدو وحانو سيحنا بقسم جرطة يعطينا وامو ستيت ويحي أنا دوما سنتين قلمدو وحي كم تايم أولادي هراء وابسين مالتين لو دبادقي مانتنا ووامي ستيت سيدا درتيد وكوما وامي ستيت مدحوينها هوركعية إلي كمودن ناوصا بسان مضاني أحمد الشيخ على دير الشمول ومدحوينها وامي ستيت مانتا وحي كدنبيان الصومالي ميرول بيجوكتو وحي نقودونتا وامو أستان ودني نبيل قطيدو ولي وحي كم تايم مقالرة عن هراء يبقوا عنك مصر الجيجين عاور وحي كلمتين أنا ما أقول كلمة يا هو يا لي هو يا هو يا الله يده هو يا لي هو يا لي هو حيبان ورقيسي يا أغري ورر أن رباي حيبان ورقيسي يا أغري ورر أن رباي حيبو وعيق من صديو ووقوي بحي حيبو وعيق من صديو ووقوي بحي قلبي وسيسه كداعي وانتاع اويي اوايي يوايا بالان ويدا بالينايي اواغي افتيما نحدم لغو ورمايي وهي وهيدي وحن الودي عيابا نفسي كان اسويدارني وقولي وعلي وما دولة ذو نقضي وقلك روبودي وما دولة ذو نقضي وقلك روبودي جيران نقوان قاسدي درور دبعي واوينده وهيونك وان ربنا وحني مانتاني هول هذا وكاولا العلي واقن عالنكيه ولقي واقبان ربيو قول الله وارو ولماذا وان راديا ورهان تبه ولماذا وان راديا ورهان تبه صوماليا إسواعيد سبعان شرفك وابناي صوماليا إسواعيد سبعان شرفك وابناي ضدك واما جوغيو كوي درس ولا جنبا واحتريو والارنمو ايام وهنشنيناي واحتريو والارنمو ايام وهنشنيناي كوانتوبا حمو سمان وليغين تاغيرا كوانتوبا حمو سمان وليغين تاغيرا ودنكينا ولا دسنا ولا جرنو كينا ودنكينا ولا دسنا ولا جرنو كينا عدوغينا وابنا ورمانو قالا عدوغينا وابنا ورمانو قالا صوماليا إسواعيد سبعان شرفك وابناي صوماليا إسواعيد سبعان شرفك وابناي صوماليا إسواعيد سبعان شرفك وابناي هويالي قاويو دنبي هويدي تهي هويالي قاويو دنبي هويدي تهي أمبل هلو هذي وقوي كلا هرياني صوماليا لعبة بحايو هيغا يدئيه صوماليا لعبة بحايو هيغا يدئيه هويسي هشيا لين هوبايا داريه هوريسيا لغو لسيو همالا قبوحين وهيبتان لين بامركالي صويبات كعيه اواينا هشينو هرو دقاقناي اواينا هشينو هرو دقاقناي مركيو هيان دعي هلا لقرابا مركيو هيان دعي هلا لقرابا أوركي هينا يا هرر لصاراي أوركي هينا يا هرر لصاراي ويبيلال هنا نوغيهرين كتاغاني وحوسي التقية باهد بورك ميل دقية وهالقواوي يارا تاقي ميل وروض هلاي إناقنا هليقيان دورنا هوشينو وذيه إواينا هشينون هرو دقاقناي إواينا هشينون هرو دقاقناي هويا إن كان هلاقي دعي لهيراب كعيه
hooyooyinkan halaagii dhacay la hiraab kiciye hurda kama bogtaan oo hilibka gubane hablihina sayba buuxisoy haba waayaane hoygay ku noolaan jireen wiilalba hubka soo dhigtaye oo walaa umungoyay raggii wehelanaan jiraye hayeeshee halyayga doorana nooga hildhicine waa inaan heshiino oon horu dhaqaaqnaaye waa inaan heshiino oon horu dhaqaaqnaaye ugu horeyn marti sharafta kala duwan ay isugu jirta rag iyo dumarba ay kasoo qayb gashay xafladan waa idin salaamayaa dhammaantiin waxaan kaloo salaamayaa odayaasha iyo marti sharafta gaarta ee fadhisa miiska garabka iyo badixa waxaan kaloo salaamayaa saxaafadda bahda saxaafadda oo horey loo sheegay doorka ay ka ciyaarayaan horumarinta bulshada Soomaaliyeed ee degan koonfur Afrika gaar ahaan iyo guud ahaan caalamka meel kastoo joognaba waxaa isku kaana xiray oo maalin waliba warbixinada dhaca haba yaraadeen dhacdooyinka intay doonaan baa noqdeen in la soo gaarsiiyo saxaafadda iyagana waxaan jeclaan lahaa inaan si gaar ugu mahadceliyo anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee koonfur Afrika la yiraahdo Somali Community Board waxaan ugu horeyn mar kale u mahadcelinayaa oo aan ka hilmaamay mahadcelinta qabanqaabayaasha xafladan qiimaha badan caawa isugu keenay marti sharaftan kala duwan magaalada dadka qaar xataa ay isu keeni waayeen waa mahadsanyihiin mar kale barnaamij qodobadeedu waxay ku saabsan yihiin midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxaan isleeyahay qof kasta oo Soomaaliya meel kastuu joogaba maanta inay xaqiiqad tahay in wadajirkeena iyo wadajoogkeena iyo isfahamkeena guud ahaan ay ka muhiimsan tahay in la kala tafaraaruqo ama in la kala tago ama in la isfahmi waayo waama state waa mahadsan yihiin waxay kalay ku sharaf leeyihiin inay inta isu soo baxeen dhibaatadii iyo problemkii ka haystay gobolkii ka tirsanaayeen inay yiraahdaan waxaan ku muujinaynaa inaan maamul kala sameeyno wax loo baahan yahay noqotay wayna ku mahadsan yihiin qodobka ugu horeeya taabanaya wuxuu yahay waxaad moodaa beri ugu dambeeyay waxaan ugu soo kordhayaa maamul goboleedyo ka hoos dhashay maamul goboleedyo kale taana waxay caddayn u tahay markii hore Soomaaliya maamul goboleedyo loogu dhawaaqayay inaan hore loo falanqeynin war maxaa ka imaan doona baalasheeda weli lama rogrogin taana waxay keentay in dad badan oo dhibaatooyinkii 22 sano jiray ay rafaadiyeen haddana in loogu daray mid kale qolay dusha ka timid ay tiraahdo wararkan soo fadhiista annaga la sheekan daray waxaan u malaynayaa baaq gaaban aan u dirayo mujtamaca ka soo jeeda waa state inaad muujisaan dhibaatada aad kala kulanteen Jubbaland wax loo baahan yahay waay haddana waxaa laydinka rabaa in dulqaad badan aad samaysaan wax badan aad ka tanaasushaan idinkoo fiirinaya magaca guud ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan waliba gobolka aad ka tirsan tihiin si ummadda Soomaaliyeed la isugu keeno nabadna ku wada noolaato mowqifkiina inaad caddaysaan wax loo baahan yahay weeye haddana inaad wax badan fiirisaan waxaan u malaynayaa inay idin noqon doonto lagama maarmaan insha Allah haddii la yiraahdo waxaan kaloo baa kala ujeedinayaa hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada uu ku jiro hogaamiyaha cusub ee maamul goboleedka Wamo State mudane Ahmed Sheikh Aadan waxaan u malaynayaa Soomaaliya maanta waxa gacantooda ay ku jirtaa hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada iyo shacabka la jooga nabad iyo isfaham iyo isgarasho iyo isu tanaasul iyaga aan ka imaaninna waxaan u malaynayaa inaan laga sugaynin dowladaha dhexe ee maanta xamar isku urursaday ee hoteelada jooga waxaa loo baahan yahay hogaamiyeyaasha maamul goboleedyadu
inay wax badan eegaan ummadda ka midka ah goobaha ay ka taliyaanna wax badan ay uga tanaasulaan si aanay u badanin tafaraaruqa ka jira bulshada degan gobolladaasi gaarka ay ka taliyaan sida Wama State oo kale maamul goboleedyada iyo hogaamiyayaashoodu waan aaminsanahay wax badan oo iyaga laftooda kula macaamilan dadka inaan weli loo tilmaamin haddana yidhi wax qabyaaladii lagu qaybiyay yihiin laakiin waxaan ilas leeyahay waxa aada muhiim u ah oo lagama maarmaana nin kastee lagu dhiibay maamul wuxuu u baahan yahay bulshada uu taliyo ama degan halka uu maamulka ka yahay inuu ka shaqeeyo isu imaatinkeeda iyo nabadeeda iyo isfahamkeeda iyo wadajirkeeda iyo weliba wadajoogkeeda guud ahaan waxaan kaloo leeyahay madaxda Soomaaliyeed iyo dhammaan hogaamiyayaasha xaqiiqo weey mar haddii ay dadkii matalayay maamul goboleedyada kala duwan ama sida kan Wama State oo kale ay soo gaareen inay yimaadaan South Africa iyo meelo kale oo adduunka la mida kuna muujiyaan cabashadooda inaysan weli ku qanacsanayn sida wax loo qaban qaabiyay ama loo qaybiyay ee gobollada ay ka tirsan yihiin waa xaqiiqo inay wax badan cabanayaan laakiin mar haddii hogaamiye goboleedyadii ka tirsanaayeen iyo guud ahaan madaxda Soomaaliyeed ay wax ka qaban weyday qofku xaq uu yeelanayaa inuu inta soo dhaqaajiyo uu yiraahdo meel kale cabashadayda banaanka ku soo bandhigi karayo inaan gaarsiiyo ku khasbana marka reer Wama State waxaan u maleynayaa meeshii ugu dambeysay jooga qof kasta oo Soomaali ah aniga waxaan qabaa leeyahay oo cabasho ka qaba halka uu degan yahay inuu muujiyaa waa lagama maarmaan reer Wama State-na way ku mahadsan yihiin cabashadooda inay muujiyeen caawa ما يبقى رجوينا أو أنا لنا هديون أن معمولك كونفور قلبت إني مدحوينها أن معمولك Wama State وصحنا وايدونا وأنا حتى كدام بنو قعد صدقهم إنه المدحوين وحيان نسيه معمولك كل شيء والمدحوين وحيان مسميسه sababtoo in badan yana namiji xabi mayna lena dadka oo yani Soomaalida yani dowladeed la hayeen iyo kooyano yani sidii fadan ku weelan fadaan maylena maasdaaki la shamil kiili istaawiye maamulka Wama State walan baahanay in ismar horaka waana ka qaadada qodobka leerow Wama State madaxweynihiisa eedan sugaani shacab shayna eedan sugaani kala duwanay ما يبغى ملاهي كونفور قلبت ما يبغى نيجي ميل كاست إني برلمان نوصي برلمان بس إننا مدحوين كوحيانا كوفدان مدحويني ما يكلا المهد نجي الشعب كسدوين عن كجاب دانودي معمولكم ما يبغى لنا أرتيس النجد ين مهد سنتين تيدي كلا ما يبغى عروض عروض كتير معمنة ونعروض ميرانه وبك يرانه ما يبغى وبك تي معمول قبلك Wama State يا وبك taasay kala may bakadaray geek may ogaaday horta muwaadiniin Soomaali in inta ka jirta may badaray may calanka Soomaaliya hay'ado hadii leeyahay in Soomaalida gaaraysa Soomaaliya ay toosto laakiin heesta astaanta calanka Soomaaliya may bahaytay macnaha heesta oo kala neeshidi oo haytii lan kasta alin shay midib shay goono unuuna kiigana irkaana kiya xobolna lahayn heesta saasaha jirta marka Soomaaliya toostos waa macnaha Soomaaliya alaynis laakiin heesta calanka geeka in muwaadinimo laambi waa anageed ka faraxsan meel kasta xafladaan kasta ka qayb gala heesta calanka boqoleeda dadka Soomaaliya toosto la isrumayaan waa heesta calanka goono ma leeyahay lan kasta alin shay midib shay goono unuuna kiigana irkaana kiya فرصته أبهاي سيد إيدا إنكياته أو كإيدا كفرحسنا إني أنا معناها أنا كغير قالوا معمولكم Wama State عدس جاينا هران دي بدي سينا مرخاتي كيتي ما مرخاتك أنا جلسنا إني أنا مدحوينك وعجين فضاي حتى كتب من أنا منكم برلمان كم برلمان كأن هرمان لك قلبي أو ما يبان كسي أنا إسنسين كساسان موشي دولة جوالات كبوب لان كسي دولة جوالات كبوب لان كره وين تي برلمان كروج ورنيا Wama State أنا مدحوينك وعجين كين أقول ميلو موي
أنكاسنا باق أنا لكاسين درو وأنا ما هتسلتين والسلام عليكم. سيدي بالله قاعد دون توحى كم بدا محاتري أيام اللي كان ما يلا برضو روام. هذا أصلاً تقرأ الصومالية علنك أو أنت بدنا أو قرض أو كيمد وقلنا علنك الدواعين وحد بكلرك علنك لو قش كنا الصومالية تصومها علنك الصومالية هذا أولي هي ما كنت ما سمتي. مرة يعني أنت وجود بيننا ولفرق كم قلنا غيبها كلجة السنة عاوا وأنا كنت لقى الله يدعمتوني ما يكونش صادق بدك كلجة السنة بالمغرب دونتان أسيء شيء. دليل حكاية كيهين هالبورة كوالي وما يستاهل. دليل عن هذا المصنع حتى من دليل الجريمة خرم الجريمة. والدنيا الرسمية حتى الله صعب طمي وقال دليل أكادي. قضية مكين. سيدا درتي. صدق يطول دليل رسول الله في كمال جوينيا. أنا قول رادين يا مجال العاصمة ده وده كان اللي هذا بريتوريا وحوي يريد دومية جوجا. حكى كل هذا. وابو حفلة دير النوبلنا يبلنتو هذا صاحب كي حرب عبد حسن قدومية حتى اللي يرضى بريتوريا. هي مرت النصيرة يا ميكروفون كارتيني صح. وأنا استيد مركي اللي هي رانت أنا وما أعرف ولقي لكن سوى مامل عصب وصومالي مملود كم رانتي لما أنت فرمركي صومالي قالت واحد كم هدي لو فانا هي مامل يو نظام يو لو رادين هي وأنا واحد لو فاني شري ريبل كهوب بدن لكن ما أنت مامل لسكو دافع واحد رجيني صومالي إني مامل كفانتو مامل كاسنا ومدحوينا كهذا مدنا أحمد آدم شعبك الصومالي بكمل هاي شعبك قلمدو استيت بكمل هاي فرانتي وأنا استيت عاوح كيني والصومالي شعيل وحكم دي المعمولات هراء الصومالي لوجد أواقي سيدا قلمدو شبلان باقي أنا أدري هي معمولات أصلا وحكمت إن معمول مركي لو نواقو إن هو يشوى الشقين لكن أيضا نقولين لبدي معمول لبعده ولا سكاك إستي إنه وذا الشقيان إنه نبض كشقيان إنه دليل هذا الصوماليين وحيالا حن لو رسالة يسرعان سووا كتير ضد كنا بديت الصومالي آدي أقربي رورانتي صوماليا قربها أنت إذا بدن كيني وأركيسين الشباب دليل فربضن أو لا قفتي أنتوا ذا بدن أي سقان قارن رورانتي واحد آدي أد لوجان حق هذه قبل والله معمول يدولة ينظام لو سمينا تسمي دعدين ونكون تجينا مرة صدق دقيقة قفل بلسية لكن وحنا لا هي من نمط الصوماليات هل قلت ذا قفل بالصوماليا وحنا قاعد حياة this local government and this is a national of Somalia flag وحنا لا هي فيفا على كبلوكا فيفا صوماليا نولا ودنيا الإمروي سرعان شرفنا كلي اللعبة أنتي نجلس وقيف كشيء وحنا لا هي welcome to Wamo State أهلا وسهلا ومرحبا حياكم الله قلبكي كوبادا الشيء هاي وحكم ده أفقبها بأربعة أصنع دحرا أفجوب لو ما ذيك هذا هو إيديسن حتى هاي وامو ستيت وعن هدينا دنا هينو عن كهدينا وحن الديدنا هينو قف كويستاجو نوال بنوا إنه حقوقي سيد النمدي سووا هلا وحنا هذه أنا وقفة سنة إنك سووا صوتها هاي ما ملكه لكن له تأخير له خير ولا رسولك عليه الصلاة والسلام وهو بوضها خير بوليه ثانيا وحن كهلا وحاجرت أثر ولي وحاجرته أساكن كهرنا يورك تالي هي إلى أتكيسن وصومالي أردن وإني أقول إني أساقود أي كهرة والدنيا مركي هرنا لك بخجر أون مانتنا عن وحدي تأنك نقنا وحنا ليه هاي وحوح وضع لو رأيت أعظم الرجال وراء أعظم المرء وده حكمة جرت نوين الدار تتناغ اسكتوا سيسي نينكستو ملحة ومامول يميل وبهاية هويا كهندس قبل دليل الصومالية بحن شيئا إن أي كاتاليان الماء أي كورينايان مسكحيا يروحيا يجسميا إن أودسان إن جسميا كليا إن أودسين سكن وحاجته عقيلتني يا قيادتين عقلي موحو النقطة أمحارة إيو أمي صومبا مايا
jeclaan lahaa inay ogaadaan qof walbo Soomaali ah maskaxdiisana uu ku xiro in uu yahay nin jiro oo sharaf leh qofna inuusan qof xaqiri karin oo la isla bartay colaadna ma aan xarbil baari waa inay hoos u wada hadlaan oo maamulka iyo maskaxiin loo wada shaqeystaa hadda waxaan salaan gaarsiinayaa madaxweynaheena iyo madaxweyne Soomaaliyeed oo dhan meel joogo waa iga dardaaran ayagoo wada og waxaan u sheegayaa in ay ku sameeyaan cadaalad sinaan iyo nolol wanaagsan sababtoo ah Umar bin Khattab radiyallahu anhu ayaa maxay ahayd waxa dhacday Sacad bin Waqaas in uu maxay ahayd qaniimo soo dhiibay ayaga ku guwaabina oo xusuusina inkastoo ay kulli ahlu diin ay wadiin ay og yihiin qaasatan special madaxweynaheena waama iskay oo asliyan buu sheekh ahaa sheekh uu ku dhaqmo diintiisii dadnimadiisii darajadiisii iyo maamul cadaalad sinaan ee wada shaqeyn wacan wuxuu ahaa asalka waa u yimid Sacada soo dhiibay qaniimo badan qaniimadii markuu uu keenay yu Umar bin Khattab uu rogay markaasuu yiri ma qaniimadan badan daacadnimada ee saxaabada ee u keeneen alla ninkii madaxa u hayo maamulka hayo oo soo bixiyay daacad sana Ali bin Abi Talib meesha la joogay wuxuu yiri adiga hadaa daaqil hay ayagana way daaqilahayeen adaa isdawrtay ciidankaagina wuu isdawray marka nin walbo madaxweynaha haduu isdawro cadaalad iyo sinaan iyo alla cabsi hana xasuustaan yawm la yanfa'u maalun wala banuun illa man atalla biqalbi salim marka alla ka cabsigana ha lagu dadaalo wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh awal midana misanahay wax ka gedisan wixii awal jiri jiray inay jiraaneen taasoo ah maamulka waama state waan isleeyahay garashadayda waa maamul ummadda Soomaaliyeed ay leedahay Soomaali dhexdeeda ka yimid taladeeda iyo fikirkeeda ka yimid garashadooda iyo go'aankooda ku yimid gacaashishay aysan ku jirinin go'aanka ay keenay asal ahaan meesha soo istaagay waa sidaas daraxlada ma aan ahayn intaas kadib maamulka waama state waxaan u leenahay welcome waan hambalyeynaa madaxweynaha iyo guud ahaan intii arrintaas isku hawshay iyo dadka deegaanka iyo odayaasha iyo qof kasta oo fikirkaas ka qayb qaatay oo ama hadda meesha fadhiya ama awal dadka ka soo shaqeeya kamid ahaa waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marlaba intaa kadib waxaan isleeyahay maamulkaani saddex arrin uu kaga gedisan yahay maamulada hore qodobkooda wuxuu yahay sida hore baan u sheegay waa maamul rabitaanka iyo danaynta dadka deegaanka ka yimid oo garashadooda iyo go'aankiisa ku yimid qodobka labaad aan isleeyahay iyaduna muhiim u yahay waxay tahay waxaad dareensantihiin inaan gacmo shay ku jirin go'aankiisa iyo taladeeda ay dadku lahaadeen qodobka saddexaad oo aan u garashada soo qaadan kara wuxuu yahay Axmed madaxweynaha maamulka mudane Axmed Sheikh Aadan waxaan filayaa inaad wada garanaysaan sheekii caanka ahaa ee magaalada Muqdisho deganaan jiray baa dhalay ninkaas asaguna waa sheekh inta hadda historigiisa ka hayno waxaan isleenahay wuxuu ka yimid bay'ad dibada aad u qurux badan asal ahaanna markii loo fiiriyo bay'ada uu salka ku sii hayaahdo waa wada garanaysaan waa reerkii diin ahaan loo tiirin jiray ummad Soomaaliyeed culamo ahaan tiirin jirtay intaa kadib waxaan filaynaa inay noqon doonaan raawaamo sida ay ugu maamul ahaan ugu yaalliin meeshii Soomaaliya xudunteeda ahayd ee barwaaqo sooranteeda mugaasha Soomaaliya mareen beeraha iyo cambaha iyo badda wada ahayd badda xafkeedu saaraa qiimaha badnayd qabaa'il kala gedisan oo Soomaaliyeed ay degan yihiin oo jiko kamid aysan deganeen waxaan isleenahay markii xigmadaas ay bartanka ku yaalleen iyo deegaanka iyo dhulka qoyaan badan ay ka soo jeedaan la eego nidaamka lagu soo dhisay iyo hoggaankiisana la fiiriyo waxaan isleenahay waa kii lagu aflaxdaa insha Allah waan noqon doonaa biidnillaahi kariim mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u leenahay welcome oo soo dhaweynaynaa maamulkaas anigoo ku hadlaya afka ganacsatada
gobolka qoyteyn ee Soomaaliyeed wax badan waxaan taageernay waxyaabo kala gedisan oo muhiim ahayn sida qabaa'il iyo dhinacyo kala gedisan iyo dhawaato taagan maanta waxaan taageeraynaa maamulkaas midnimada iyo Soomaalinimada xambaarsan haddaan nahay guddiga ganacsada waxaan ballan qaadana insha Allah tacaala iska taagi doona kaalintan intaas markaan taas kaga gudbo waxaan leenahay fariin u doonaynaa dowladda Soomaaliya iyo ururada daneeya arrimaha Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxaan leenahay danta Soomaaliyeed kuma jirto go'aan dibadda laga keeno danta Soomaaliyeed waxay ku jirtaa ayaga dhexdooda waxa ay gaaraan wax lagu gaari mayo in baabuur ay Kenya leedahay ama Ethiopia ay leedahay ama Uganda leedahay la soo raaco midnoodii ummadda iyo taladooduna kuma ay jirto waxaan leenahay waxa taageertiin oo aad gacansiisana maamulaano aqoonsatiin waxa dadka taladooda iyo fikirkooda ka yimaada sida maamulka waa miskiido kaleeto ummadda Soomaaliyeed sidaas oo kaleeto waxaan fariin u daraynaa dadka daneeya qolooyinka daneeya ama aadanaha kala gedisan ama ururada daneeya arrimaha Soomaaliya ayagana sidaas kale waxaan leenahay waxa aad qabanaysaan ka run sheega ummadda Soomaaliyeed waxbay gartaan maanta way tashadaan wayna tashan doonaan sida ay u tashadaan raawaan oo ay u fahmeen in wax dibad looga soo dhiso loo keenin ay go'aankoodii taladooda yeeshaan sidaas oo kale ayaa qof kasta Soomaaliya uu gooxaya raalana kama ahan waxaan dawladda lagu soo dhiso baabuurta lagu soo qaado la leeyahay maamul ay diin sida hadda Kismaayo ka jirta kale sidaas oo waxaan leenahay waxa wax ku bixinaysaan iyo waxa qabanaysaan iska fiiriya inkastoo aan waa idin fiirnaa raay soo barnay insha Allah 25 years ka dib Soomaaliya ka jirta intaas kadib dadka waa madaga waxaan leenahay oo goboladaas degan waxaad haystaan fursad qaali ah waxaan kula dardaarmaynaa waxay dhex taala maamul aad leedihiin iyo tala aad leedihiin iyo waxqabad aad leedihiin waxaanu idin leenahay maamulkiina garab istaaga gacmaha qabsada haddii shalay baabuur Kenya ay leedahay mid Ethiopia la amar lagu sii jiray mid aad taleeso go'aankiisa leedahay geesaa in ka taagan soo dhaweey insha Allah taala gacmaha qabsada inta kadib anigu maadaama afka ku hadlay ganacsatada erayqaana miihi wala sameeysan inaan xafladaha nooca kala ka hadlo sida hore u sheegay ma iman jirin laakiin xogaa qiiraha ay gashay markii la yiri maamul Soomaalida la dhisay oo aan Ethiopia iyo Kenya soo dhisay waadaya iyo wax la halmaan marka mar labaad saddexaad hada soo dhiganahay wal kamaalnahay waa garab istaagay insha Allah taala khayr badan oo rajeynaa madaxweynaha uu sheekhu dhalay barakallahu bilaa tawfiiq haddii aan nahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika runtii waxaa la soo wajahaa caqabado aad u waaweyn caqabadahaas oo qof kasta dareemi karo oo haddaan la isaga sheekaynayn laakiin xaqiiqiyan waxa looga bixi karaa inta caqabadahaas midnimo iyo iskaashi haddii labadaa la waayo midnimo iyo iskaashi waxa bedelaya waa garan karnaa waa iska cadda waa baaba iyo macluul waxa bedelayo oo iska cad taa marka waxaan usoo qaatay waxay tahay ujeedka waxaa ilaahay mahadi ah ummadda Soomaaliyeed inay fahmeen maanta in xaflado la isugu yimaado dadku inay aayahooda ka tashadaan maxay ahayd dadka inay isu tagaan ururaan taas waa ilaahay mahadi waa horumarka la gaaray xilli la soo maray oo ay jirtay inaysan suurtagal ahayn intan ay isu timaado waxyaabaha taariikhda baran bay ka mid tahay laakiin maanta alxamdulillah in la wada casheeyo in la isu yimaado in qof kasta oo Soomaaliya isagoo xor ah rabitaankiisa ku imaanayo ku joogayo inaanu maanta marayno taasi waxay horudhac u tahay wadada horumarka ee lagu gaarayo waxyaabaha aanu higsanayno oo ay koow ka tahay midnimada iskama timaado ilaa maxay ahayd dhaqaaq la sameeyo maamaadii ahayd haddii aad doonayso kun tallaabo inaad qaado waa inaad koow ka bilowdo haddii kale kuntii ma gaarayso marka waxaan insha Allah aan aad ugu faraxsanahay aniga ka Cabdiraxmaan ahaana dadka Soomaaliyeed ee soo qabanqaabay xafladan oo ay ku cabirayaan dareenkooda nooc kasta oo ahaado anana farxadda waanu la wadaagaynaa waanu la qabnaa rabitaankoodana waxaan leenahay insha Allah Ilaahay oo u meel mariyo hana noqoto xafladan lagu caleema saaray ama dhinaad lagu dabaaldegayo maamulka waamo mid ka turjuma ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed markaan leeyahay ma ahan ras casari gaaskambooni waa shanta Soomaaliyeed mid ka turjumaya inuu noqdo baan kula dardaarmayaa insha Allah oo
حقيقيا وحنا شك كجرين شنطة سوماليات هلك إني فديان شك يجمع جرو مركز أوجد وإنه كتب جماعة معمول كان شنطة سوماليات الصورة كانوا كمان dadka waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo ganacsatada iyo arrimaha bulshada dadka maxaa la yiraahdaa civil society-ga kadibna ay ka wada hadlaan halkii looga dhaqaaqi lahaa halka hadda aanu joogin caawa insha Allah mar labaad mar saddexaad qabanqaabiyaalka dadka lagu soo martay qaaday ama invite gareeyay dhammaan waxaan aad ugu mahadnaqaynaa sidii sharafta lahayd halkan lagu soo dhaweeyay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay waa state ha guuleysto ha hormaro إن شاء الله كان كيسنا إلهي هورميو أنت يعني إن شاء الله رأينا مكسور بحر أنت وما ستين مرة المرسل يكون شرفيهين إن يوحوا إلى الصلاة ويكون أمانيهين إن يسكوا مادان ويكون أمانيهين أيقوا مهجناي إن يماموا الصميستان runtii wax la gaari kara maaha waxaan kaloo leeyahay mudane Axmed Sheekh Aadan waa nin kulley mudan inuu xilka qabto maxaa yeelay hadduusan mudnayn lama doorteen waxaan leeyahay kii dadka isku xira ay cadaalad iyo sinaan iyo mudnaan isugu keen horta Allah kaa dhig waana kaa rajeeyna waxaan uga fadhina halkaan ay ka mid tahay reer Waamo waxay ku caan baxeen culamaa diin iyo siyaasiyiin inta waxay leeyihiin culimada waaweyn ee Soomaaliya ay ka soo jeedaan waxay muhiim u yihiin diinta islaamka waxay muhiim u yihiin gobolada ay ka soo jeedaan waan dadaan dawladda dhexe ee Soomaaliya marnaba aysan ka maarmin waxaan uga fadhinaa wax la taabo karo amba muuqda aan uga fadhinaa inay maamulka ka keenaan waxaan halkaa uga mahadcelinayaa dhalinyarada iyo aqoon-yahanada siyaasiyiinta odayaasha waxgaradka dumarka oo qurux badan inay meesha ay baalka leeyahay ka soo qayb galeen ayagana mahad iyo gooni leeyahay waxay ku amaanan yihiin inay xalfada ka soo qayb galaan maxaa yeelay markii nin walaalka ah wax dhisanayo inaad u timaado oo la fadhiisato sharaf ay u tahay ninkii loo yeeray inuu yimaadana waajib ay ku tahay maxaa yeelay markuu nin walaal saaka ku yiraahdo martiya ay tahay ima inaa ajiibtaa waajib ku waa waadna ku mahadsantiin reer Waamo waxaan leenahay wax la taaban kara idinka fadhina haddaan maamulada kale wax la arki kara idinka fadhina waxa idinka sugaynaa daris wanaag waxa idinka sugaynaa maamul wanaag waad mahadsantiin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh قرني مدهنو بالشوي هذه يقور هيك نقو بالشوي قرني مدهنو بالشوي هذه يقور هيك نقو بالشوي قول قبض هنون سنة ودنتادنا هاجر كدا دنتادنا قول قبض هنون سنة ودنتادنا هاجر كدا دنتادنا هيجا قالي هارو مركات المانتا حقاشي يكوير هورارت دابا دولكاغانا هو سودوغو هيجا قالي هارو مركات المانتا حقاشي يكوير هورارت دابا دولكاغانا هو سودوغو عرابو حليل ايو هيان قرينو نهاي عرابو حليل ايو هيان قرينو نهاي ايشتيو هذا كوا inaan hegada marno bulshooy holku hamina
عرابو هليلة إيو هيان قرين نهاي عرابو هليلة إيو هيان قرين نهاي شكي هدفوا إنان هيقاد مرنو بالشوي هلكوها جلاقة سدحاد وجميل يوسف أحمد وكجيل دونتا قديجة حاجي وايه والله قارينا لكن مركان علة سميسان والله صبحي دونا محمد عبد الحسين حاج عيسى وقورمي حاج كلتين وسلامتي دمانتي والله هذا لكن ومركان كارين هذا لطيف والله بسم الله سلا كارين ما هيك وين ويه عبد الشكور عبد الله وكجل دونا عبد الله قرع يا سلام wuxuu yiri jeebka igu haa ilaa waa wiil aad cod macaan marka hadda raggu tadka boga doontaa qosol iyo kaalin iyo aktarabtii ugu qosolka badneed hadday soo socotaa isku diyaar garee amal kamaal maxamed oo ku jiri doonta xamdi qooley waayahay caawa laga boga doonaa شكاف حسين عقاك وحو كجيل دونا عبدي حوق سدي حوق وحان اهين ديارو ما كور موجود فريق مقبنا جلاغا كوحيغا وقيبتي قبلها صابرين محمد آلن وحي يدر كجيل دونتا صوبا قولي وكارنتي ربا جلاغا كلا waa nin caan ka ah Mayfar oo waliga aad u mooli jiray aad u malayn jiray inuu qosol badan yahay maantana majaajilisto ayuu noo qaabilsan yahay jalaagaasi waa kee Cabdi Fataax Maxamed Xoosh oo ku jili doona xabsade cid uu ka tagay ma jirto haddaba jilaag kasta oo Soomaaliyeed waa macaawa matalaya wuxuu ku leeyahay bye bye waa inoo ruwaayada iyo sanqaadkii wacna مروي حاجي كمه صلي على مياه الميلاد هاي الله حاج واكنا استجوت منك وقت محاوقة لسا حاج أنا مالك السوحان بصيا خرج كان شغية لا قاطة وحان أركنا ملها أيوة وجدتا حاج أيوة مجرى هذا حاج قيلا ورد حاج فلسفة الاستج قيلا اسكدايو مركان لما أريك دو كل بمحل يدك سعر حاج هذا حاج قدا قيلا أيوة يا صعب الكبريكة حاج أيوة كمبر المياه فلسفة أي سوكالوس بريد هذا مي حاج بخير محايسة بخير لو توشيك تاي ورتا أيان تامبا حار بينا كوشيغو وأنا يرى مشغول حاج خير بشيك جفتي هي محايسة بعد الأول علي يسوع ورتا أريد بجتا هي حاج كودي أريد عيادة وحوي مع الكبار وحريرات هي واحد كرتي ما وحواجرو بحاجرة مال كستا قبل كستا مامل مسميست جبلان باجرتا بلان باجرتا قاتم استيد وحريرات جرا قلب دوب باجرتا وعقرت سوما كر marka anigu waxaan doonaynaa inaan maamul sameysano oo maamul goboleed sameysano waxa soo wacd gartay ma حاجة جبلان بلان قلنا تكشكين سمحتها وحسبك وموجين حاجة هذه دبكة وحاول قل رعكة تقول حاجة قال ساقنا إيش كورتا جبل أنت لو شيء هاي حاجة محتها وأنت تستي أو قان جاري وهشي هي بلان واسلوك أيوه أنا مركو حان دونينا إن أنت سنو معمول سنو تدك يجونا إهر جلان حاجة وكسر فكرنا مرتب ماذا كان يقولون شكل شيء اسمه waxaa jira maamul goboleed baa yiraahdaa waa federalism inkastoo ingiriisku aad u adag yahay gowda marka waxaa jira maamul goboleed yiraahdo marka waxaan doonayaa maamul goboleed inaan sameeyno magaalada laga dhigo wada iskuul dadka tacliinta bartaan diinta bartaan aqoon yeeshaan
baadiyahaas iyo colaasna kasoo tagaan حاج تي مصيبة هذا درس كيه صاحبة هذا لا تشنج طوين أو يارو ولي ما فاهمينه صعوية حاج نعم ما هي لوضيقي أنا وضيقي وقفة إذا لما الشاقة الشاقة عادي سكري وضيقي بيرتو تاقين في الشاقة أنا مالهان وضيقي قلت خير وصو الشاقة بلغيسو هاي بليشة بلا أدونك المامل بلا سميستان dadku waa isku tashtaan annaguna maamul baan samaysanay waa inay sheega maamulkeen waa inaan kula tashanaa rabnaa balanta maxaa haysaa maxaa maamulka ka hadlaysa ma fahansanin lahaadeen maamul baan rabnaa inaan samaysano sida Jubbaland iyo Puntland iyo Galmudug iyo ahayda Jubbaland ta sheegaysi waa maxay waliba uma maqlile ma wada la maraa sinkana waa maamul weeye yaa maamul weeye sister oo maamulka muxuu iga dhadhacsiin ma fahansanin maamul hadda samaysanayno waa mistake Okay, bal ina qalacna balsa hilka ina oo waayo bal xaajiga ugu jifa ina u yeero waa saga wax walba ka ogaan kartaa aan soo jiifo ka soo faa'iido guriga naawre bangalada xaajiga kara xaajiga bal soo ka xaaji bal xaaji horta bangalada ma ka qaban adiga bangalada laga qabo السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وروا خير دكا كور واني والله نايغو دينعي نعاسي قلبدي geeli arigii warbar wayahan baniyo wad bal sheegay dhamaantoodu waa iska khayro laakiin abaartu iska jirtaa laakiin waanu iska noolnahay waani waa ma sha Allah koodi aye soo xaaskaaga iyo carruurta ay ku maladna aad iyo aad ani kuwan dhalmaan kiswaan dhalmo meel ka baxana garamaayo koodi soo kadaloos soo kadaloos ani ma ku hayay waa ka soo daabal waxad waarniyo horta niyo waxaan doonayaa inaan ku sheego koodi haye xaafadan waxa weeye maamulka markii la fiirsho ninka kaliya sheekha ka waa adiga daanko haye waarniyo horta waxba jira haye waarniyo adduunku waa tastay dadku tashay ma garatay waa gartay nimaan tasanadii aarka qaada waa runta marka niyo waxaan rabaa inaan tashanno maamul aan samaysano deegaanka kor u qaadno dadka iyagana tacliinta ay bartaan diintana ay bartaan aad iyo aad waa arrin soo dhaweyn waxaad gartay ma aad iyo aad marka niyo waxaan doonayaa inaad taageerto oo arrintaas ayada ay la garab gasho ilaahayna noo garab galo haye bal muxuu baa maxay tahay horta arrintu isha waniyo waa wax la yiraahdo maamul goboleed dadka deegaanka baa tashanaya okay maamul gartay laakiin gobolku muxuu ahaa war gobolka iyaga soo deegaan ma lihiin dadka iyagu meel ma degaan waa runta way degaan si halkaas ayada halka ayada wareegta baan ka sameynaa maamul halka ayada laga dhisyaa gobol si wanaagsan maamul goboleed wax la yiraahdo sameynaa federaal baa jira sida Puntland ma maqasho horta waa gartay maxuma ay laakiin niyo horta in umadu wada tashato de maamul ay samaysato iyo gobol ay dhisato maxuma si wanaagsan laakiin de magaceen u bixina waniyo magacaadiga jecesha badiishay maaniga ay yaanu waxaan jeclaan lahaa isu tag state loo bixi isu tag state ha baliyo taas ayada ma qabo koodi hay'adda bal aan wareysan ayada maadaama ayada deegaanka ha الحاج محمد وحو كهلا يو فري ستيتي وامحي يبقى وحوا هذه الرعاة تقولي إيه وحوا جرا كولي ومامل قبلت وادد سبيرسي وادد هشي وادد سكوتري وولا المسلمين ولا تجي ولا تشتري ولا أيها دي هير كارسيا وانجا واحد كرتما مركو وحن دونينا إن أنا يتصنّو إلا نما تشن لما تدي وين أنا تشنّا وين أنا هيركس كرسنا وين أنا جا عن إسبانينا وين أنا ما مرسميسنا وين أنا عن سميسنا اللي بانو يوزير أنت من أسمع محمد عمل أسميستي ده ما حشير أنا وكلنا إيمان كلا داي هرتا نكايا طبعا هنكدي وزيرك بيراتك يا خيراتك يسوق ولكن محكد
sheegaysaa haddaan ninkan siiso wasiirka ninkayga ilkaha kusoo taagaa hor ilkaha dheer leh baliisu axmedow baliisu adii iyo xaajida iyo kaadiya dee waxaad tidhaahdeen maamulaan dhisaynaa si wanaagsan waxaad tidhaahdeen ninkaagan waxaan ka dhigayaa wasiir si wanaagsan dee soomaalidu waxay tidhahdaa waxay ku heshiisaa wax la yidhaahdo wax wada qaybsi haddaad adigu maamulka dhisto dee anigu waa inaan madaxweyne ku-xigeen qaataa ama xaajiyadeeda madaxweyne ku-xigeen ay qaataa inta anigu waxaan ahay ma noo cuntamaysa horta maxaad aqoon leedahay adiga dee anigu aqoon heer ilaa waxaan leeyahay jaamacadeed BBC daan akhriya aniga BBC jaamacadda BBC ka soo baxday miya ahay waxaa arrin wanaagsan warniyo horta inkastoo aan jeclaan lahaan kaa dhigay wasiirka beeraadka iyo khayraadka inkastoo xoolo dhaqataa iska tahay adiga yaa dee niyaho xoolo dhaqatada horta ceeb maaha dee abka ab maanu xeelo soo lahayn si wanaagsan ilaa iminkaanu leenahay si wanaagsan dee waanu ku sheego BBC daan akhriyaan waan ku yiro jaamacadan ka soo baxay wasiirna arrin ay anfacda maaha amaad madaxweyne ku-xigeenna siinaysaa warniyo arrinta ayada ah horta inkastoo aan jeclaan lahaa dadka deegaanka inay doortaan dee haddaan anu madaxweyne ku-xigeen aanan siinin dee maamulkaaguna ma shaqaynayo warniyo horta in la isqabsado in la heshiiyo baa ka fiican haye waxaad gartay dee waa ina waxa ogolaataa haye saacad wixii ka dambeeyo waxaan ku ogolaaday ra-iisul wasaare maya maba iyo anfacdo horan kugu sheegay dee ma madaxweynean kaa dhignaa marka maya ku-xigeenisi dee qaado ku siinaye bal aqoontaadana noola imow shahaadadana bal noola imow waan keenayaa BBC daan soo bixinayaa waxbaa ka cabsan dhiiggeed raaci jira madaxweyne ku-xigeen nooga dhigta naa adiga hadal yar baad noqotay bax xaafadda gal waraawarta baangalada oraha u seexatay heer mahtin waxba kama ogay ari raacdooda naagta gacin bal haye aadanow axmedow si wanaagsan dee maxuma maamulka la dhisay magaceen u bixina waaye magacaada tiri muxuu ahaa waniyo wamo si wanaagsan bal ii kaada marka idaacadda aan balandaaro haddii ay idaacaduhu iyo wax sheegeen wamo oo soo laabanaya isu qodobada wararka ugu doorka roob ee xilligan soo gaaraya idaacadda waxaa ka mid ah in maamulka deegaanka Wamo uu yeeshay maamul goboleed ku hadli doona codka deegaanka maamul goboleedkan imikana asaaskiisu uu ka socdo gudaha deegaanada maamulkaasi iyo weliba qaar ka mid ah jaaliyadaha ayaa lagu wadaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo goordhow waxaadna la socon doontaan wararkeena dambe faahfaahin la xiriirta cidda madaxweynaha ka noqonayso iyo maamulkaasi warniyo horta waan garanay taas ayadana waan ka heshiinay soo waxaad garatay ma warniyo sideen ku helnaa dhaqaalo horta niyahow dhaqaaluhu horta waa waxa ugu horeeya ee maamulka dhisa haddii maamul dhaqaaluhu laheenna dee wax jira maba ahaba marka horta anigu talaan ku hayaa si wanaagsan taladan ku hayana waxa weeye laba nin oo ilma adeerna hayaa mid wuxuu joogaa South Africa si wanaagsan midna Europe buu jiraa si fiican marka labada nin waxay u baahan tahay in inaan la hadlo oo aan ka dhaadhiciyo oo dhaqaale iyo wax kasta oo aan kala hadlo sida maamulkaan u hirgelin lahaa si wanaagsan ma fiican baad sheegtay warniyo arrinta ayada aad baan u soo dhaweynayaa haye soo waxaad garatay ma warniyo horta arrin fiican baad sheegtay arrin qaar baad sheegtay ragga ayaga miyaad hubtaa inaad wax ka helayso dee ragga rag waa marka hore de waa ku sheegay maadeer baynu nahay dee si haddii loo eegana waa dad deegaanka oo maamulkooda dhinac bay ka degaan horta niyo stateska dal waliba dadkiisa dhisa waa runtaa haddii aniga aan dhisi weyno wax dhismanaya ma jiraan waa sax marka nimanka anigu adigu iyo xisaan nimanka anaa ilaa wixii ay maamulka ay ka gacan siin lahaayeen anaa kasoo qaaday waxbaan ka cabsan okay waa arrin wanaagsan arrinta ayada aad baan kaga sugeynaa sida u dhaqsiyaha badan waa inaan ku helnaa maamul goboleed dadka iyagana aan kaga dhaadhicinaa sidai aqoon u yeeshaan cilmi fiican ay u yeeshaan dalkooda dadkooda inay anfacaantii midka America waxaa sheegay maxay xajta iga dabagee xaaji waa nin adeerkiisa oo hanti yar haysta oo dhaqaale haysta dalkiisana dhisi karay xaaji waa inaad dadka u tagnaa ayaga haye gac leyle
السلام عليكم أمال. Oh my gosh, who's calling this time of the night? ناني قبل كل هاللاينا وحبها اللي سوا محي. Hello? Who's speaking? يا شميلة كلها اللي سوا لا شيء. Jamila, it's been such a long time, love. How are you doing? نافقال كمان خالي قشرته. Very mad that I've come on. It's been such a long time. I'm high, so what can? لا long time ما خالي الوقت اسمه قالنا هاي حاجة لو قاعد لا. Well, I play United States of America. You know, you don't even know the place. Seriously, come on. لا هذا قودا African American كسكري Somali كوها البان كوراني في Somali بانقرنا هاي. African American لا نقد دقة. Don't be jealous. درب قبسة ورك كان. درب ما قبسين قري بانقرنا هاي خالي كودة. إن هذا الور بانكوسا وعف عن كوها يا كودة. هيا بالإيشك. ودنكي. بابا رواقة كشرتا. هيا. maamul goboleed baan samaysanay oo la yiraahdo Wama State dee qof walba wuxuu samaysaday Somaliland iyo Puntland iyo Banaadir un baa yeeraysa anaga maxaa naga reebay naf baan leenahay wallahi I have no clue about that seriously naa waxaan ku sheegay oo afgaal ku hadlayso hayna adro isku naa marka afgaalka maqal xasaasiya baa igu kacday iga jirdee haye dee waxaan ku soo wacay oo inaan ku sheegay rabaa xan fareesh baa wadankii kaaga hayaa أي وتاتا وحنت أدونك ودن كما تقانا والا ديسي وبرواق الصورن وعمل كولاد بعد السنة ودن كوالا هجاجي دي واحد دون دخلها هايست إنا ودن كنا جلسين على رسدي ورقتها بسم الله ممكن أقبض ما ربتها ساعة إيجتر لعبت أنت أصلا شقينا إذا ابن أني أولي جاي اسمارك من عنتي لا هذا دمشقي وقري هاي هذه ومواس كده جينا يا ماشي ودن كوا برواقي واحد دون هنا سولا ودلعق يا هاي ستنا صدرت إن هذا هرتو محمد وطن كأننا دسنا أو ملك سمعت كم مقنع أو واحد في عنو بقول لأن يسومان لأن يقول مذبوان مقنع كان محنا قريبي وصح بدنا حاجة قالوا صوت شنو يا أنت أبغى وقتها هاي وان كاو سوق أوع بالحاجة قاعد هاي ورحاجي ورحدي هاي حاجة وجهي مونك سليمان محاسن حيوير Of course Somalia people they are forever calling one time in wrong days you know what I mean هاي ماني أمريكا جيلي بايقول بلا هذاني واسنا قناة إيش محيها سمان حاجة أرتو شاكا جرتا وقت وحالة هاي أنا كوينا state ما هاي بلايا ما فهمنا في Somalia وين وقتها وقت وحب Somalia هذه قصة ستاي أيوة كوتا تاعنا قبصة أي واحد أنا وأنا عن سميسنا أو دسيلو كله ده Puntland iyo Somaliland iyo Galmudug say state وين ما عندنا state نقنا marka waxay taageen waxa intaasan diidaynay oo xaalad serious la soo maray waa in Soomaaliya geenay wadankii waa serious وقت soo maxaa dhigay calanka horta la taagisti calanka taagistiisa hore lagama taagay wixii lagu taagi lahaa ma ka waraysa dadka ayaga may walaahi bilaajid waxay lacag leh Somali people you know money stress Africa way idin lacag ku dhisan taan was la garanay waxay u baahdeen inay codsadeen hadda de waxaan aniga inanteen yaristeeda ogtoo wadan ku dhalato Somali people ma fahmi kartaa ciidii awaa ma saacadan aadi kartaa ibtisaan baaba naga yeeli doona Soomaali la aaday waana ibtisaan yar qolkii ku jirtaa bis igu ibtisaan Come, mommy, let's go. We need to talk. You know, Haji, Somali متخانق قبل من دينا أفوق تورنا قالوا. حاول نبله وحن كرولوي. Mommy, how are you doing? I'm good, Mom. Okay, Mommy. They said, well, I have a serious. I have to discuss something with you today. Mom, what do you want to discuss? Your dad said you have to go back to Somalia. No. Mommy, I understand you. I'm a Somali. I mean, I was born in Somalia and I grew up here. I still don't like the country. Stress, money, forever. But Mom, I don't want to go to Africa or Somalia. I want to stay here. ده حاجة ما قشة قبل على أفغان كنا كنت جيب سياق قصة. السلام عليكم أبو. Ibtisaan I'm good. How you doing? I'm good. Oh, school. School's good. MashaAllah. And Abu, today I'm here to talk to you. I want to tell you
something that he told me your family, you understand? Okay. I want you to come with me to Somalia, to go see your country, to get to know your people that you are from, you understand? No, shut up, Dad. No. It's the son. So Abahaga Mihi. Yes. Sorry. Isn't you love your country? No. My Why? country is America. Your country is not America. You were born here, but you're from Somalia. Your grandfather is from Somalia. Your grandma is from Somalia. This is not your country. So you think I'm an African? I understand your situation, Abo. We have to go to Somalia. No. I won't accept this. Okay. Hamdi, Haji, Karen Tuesday. Hablu, you guys could die. Even how they got delay. What have you Okay, first of all, Haji, you're wrong about. She's not an African. She's an American citizen. Can't you see her? Does she look like an African to you? She doesn't look like an African to me. Of course, then you have to stop saying that. I understand. But there's a big program that happened in Somalia that we gotta take part of it. You understand? We have to go to Somalia. waxaana ka rabaa tikidaha inaan adiga soo jarto lacagtaada ka soo jarto ilaa lacagta aniga aan shaqeeyay waxaan doonayaa inaan ku maalgareeyo meeshaan ka soo jeedno waa mistake hadda waxaan kaa codsanayaa gabadhaan adigaa dhalay inaad la hadashid oo aad ka daadicisid sidii ee Soomaali ku aadi lahayd luqadda iyadahana aad baa iskugu taqaaniinay bal wax sheeg Haji, ilaahay baan waaye. Shaydaana kaa keena umadayna lacag weey fucking shit. No money. Lacagti shopping aan ku dhameeyna badeen oo kala raacsan. Let me speak to her. Sorry, mommy. Yes, Mom. Mommy, your dad is right about something. You know, you were born in the United States of America, but still our nationality we are Somalian. And you should be proud of one, love. No, I'm not going to Somalia. I want to stay here. No, mommy, this life has to end one of the good days. You know what I mean? You're in a Somalian, you should be proud. I know you were born in the United States of America, so what? United States is just a name, mommy, but then Somalian is our nationality. No. I don't accept that. Okay, Haji, Hassan, I wait, didn't hear. markii ugu dambeysay aan la hadlay gabadheeda Abo. So Abahaga me. Yes, Dad. I'm not gonna talk to you in English. I now have to talk Somali, so maybe you will understand me. Okay. No, she's gonna understand. I'm her dad. Abo, we have to go to Somalia. Geelal badan aan ku iibin doonaa. Dhul aan ku iibin doonaa. Nin wanaagsan oo luqad ku baran ku siin doonaa markaa weynaato. Ama macaan. Hadalkayga inay yeesho ku qasban tahay. Waan ku duceynayaa. Ducada qaado. Okay, I'll accept that. marka hadda waxaan wacayaa bal nin inankeena adeerkaan ahayd muxuu ahaa magaciis muxuu ahaa Cabdishakuur bal ha ii kaadeen hallo ruuxu maxay ahayd ma super feer bay ahayd mise wuxuu ahaa inankiina adeerku ahayd halka sax si fiican suban foor baa ku yirahay magacii ma jara ku sheegay maalin kasta dee anigu magacyada gaaladu aad bay dhibaan moogtay maadaama baadiyihii iyo geeli iyo ariga dhex joogo ma magac baadiye walaalo bal odayga awogay waqti Italian kula shaqeyn jir waxa soo waqti si fiican be hade bal aawo inankii meey xagu jira musiigiga xadar uu maqan yahay waqti location meelaad dukaamo kule xaw ku maqan yahay location ku muxuu ahaa dee anigu ma garanayo Allah wayna hadar u sheegay si fiican bis kalaamka waxa ku yiri shaqo ku maqan yahay hadar muu joogo ma ku imaado waa u sheegan maxaa la musiigiga si fiican waxa uu sawad bali shaqo waxa uu noo sawacda bal dee waxaan ka rabaa arrin baa jirta maxay arintan dadku waxay yiraahdaan dadku hadday wada tashtaan waa inay wax wada qabsadaan oo ay wax dhistaan dee qolo kastana meel bay xariiqato meel bay wadato maamul bay magacaawdeen dee anaguna waan wada tashano oo odayaashii deegaanka anigu waan ka mid ahay iyo dadkii kale waan wada fadhiisanay waxaynu go-aan ku gaareen maamul dhisano dee adigu isjiid badan markii ugu dambeyntii naloo ogolaaday jagadii madaxweyne ku-xigeenkii maamulka nala siiyo dee waxaynu ogolaanay in dhaqaalihii iyo wixii kale aanu soo aruurino marka waxaan ka rabaa dhaqaalaa laydinkaga baahan yahay maadaama hadda biilkii hadda dhaweed ay noo soo dirteen waad kuma biilkana aad buu u yaryahay dee baadiyana waanu joognaa waqtiga soo ma marka waxaynu kaa rabnaa lacag fara badan oonu maamulka ku dhisno
adeeri kobi dollar weydiinaya dollarka baa kacay hadda kan Soomaaliya lacag soo weydiinaya markaas tahay qaalib uu noqdo anagu keesha ka shaqeynaa maama dukaamana la dhacay biyadana bob kala nagu wadanay kana allagay teedna war maxaad akhrinaysaa dollarka kacay iyo waxa kan waa maxay haddaad ogeen dollar baa ku soo dirnaa ranki waa qaaliyoobay tiid dheer baa lagu dhigaysiinba maxaad dina shiidnaa imii wax bil lagu sii lawaaya horta ilmuhu waxaan u ahay adeer kowdhe marka waan markastana waan u soo duceeyaa idinkana waan idiin soo duceeyaa intaad waxaa doolara kacay iyo waxan baa kacay iyo intaa meel ii dhigta waxaan idinka rabaa lacag fara badan baan rabaa wadna hooy lacagtii aan ku weydiiyo wadnaha kuu xanuuni miya muxuu noo xanuuni waadi maxaa naga ogtaa Soomaaliya ku raaxaysanaysa geelkaaga iska raacanaysa anaka stress wadnaha fartu ku maxaa adag subaray kaade anigu hadda waxaan haystaa 10 halaad oo geela waaw raaxa ku jirta 10 halaad haddaan gadana maamulka ma taageerto marka lacagtaas aan ka rabaa inay isoo dirtaan ninka asaga ahaan igu sheeg musiiga waa la hadli doonaa bal xoga wax yar noo keed wadnaha way xanuujiseen ba aan stable haye waxaan isku ognahay sidaas aan isku ognahay haye ma salaama bal haye aniguna ninkiin wax lacag fara badan buu soo diray kowdhe صح maba tirin karaba lacagta aad bay u badan tahay xaaji ma tiriski ugu wacdana ku fiicane maya de waxaan ka cabsanayaa in wax isdaba maraan ma ka yaabintaas waa gadaad wallahi hadda waxaan aan calay masaarayna ninkii aan dooranay suuq lina adeertay aan wacay السلام عليكم ماما عليكم السلام how are you sweetie يعني معانا ايساتها يعني Soomaaliya joognaan dawa xagee not remember tuulada Soomaaliya waa joogtaa darbiga you can't believe it it's actually horrible naya wadankeena caandi wadankeena meel ka fiican ma arkaysidee come on read seriously they ruin our expensive shoes naarir kale wada lagu fidinaya balaya iska dhigina waa mistadina idimatid waaye
ما أساس على بيعنا وينا. Okay. السلام عليكم. وعليكم السلام. sorry waa badan hadeer. Oh my god. Give me a hug. oo fiican ay macaanaysataa. Mashiga barbaraba. maxay ahayd magaceed maxay magaceeda cambaralul baa la yiraahdaa. cambaralule bal soo dhawow dalkaaga oo ku soo dhawow cunug yariiska aroosta maxaa waaye bismillah هذا دقاش لما كرست سرت هذا وقتها هذا دق كرست سيدس كلا وقف عيساي warahada cambaray lii kaadid sanaadka kale ku jirno baadiyaha waxa ka kacsan hadba wax baa kacsan ilmaha yarka kacsan come on are you seriously nin weyn Soomaali xukuma ma hada nin weyn aan ku dhaqan kara adi xagee ku geena bismillah kadibaan ma ka dhigana darbiga wallahi bilan aad duqad taasna ha wayn heed ilaa waxa u dhamaatay duq baa guursata maalmaha sidiisoo kala u soo ureysaay alla ilaahay xaajideeda qariija xaaji halaha ku soo guursado waa intaas la xaajiise sidaas ku ku jecelahay la barsubna adiga ma aragtay oh my gosh xog sida wal dhahaa magaciisaba xog sida markuu yaraan jirin baa la yiraahdaa hadda laakiin duq yahay ii sheego qufaacay sidiisoo kala u qufaacay rabtide let me introduce you to my husband Haji this is my husband come on like this the big difference لا هذا حاجيga جيني waxa uu daran baa isticmaashiin asaga waa natural baadiyo buu joogaa iska barode ma xaq soo jeeso kamera na waxa uu dhahaayaba cunuginiisa dacaska 2000 goorma qaadan jirnaa hooyada eedada iyadii ma dhalan dacaskaas markay la qaadan jiray abbaay waa dhaqankeena inaa ka tagno ma wanaagsan caadi iska dhig hay hawada uga bax warka keena maxaa haysaan waan fiicanahay hadda wadanku soo dhawaada wadanku waa artiin quruxdiisa let me introduce you to my daughter first of all oh my gosh this is Istiham Aldha. Istiham, this is your auntie. She's my cousin. And that's Jamila. Hello auntie, nice to meet you. Allah yadda luqadas ma garanahay saa tahay. I'm good. Ma sha Allah waa fiican tahay. Ha, Soomaaliya ka waran bal. Somalia? It's horrible. What about Wama State? Oh my god, this place is bushes. Oh. الحاجي كان انتم maxay ku hadlaysaa ma af gaala ma af carbeed ba muxuu ahaa sug baad sug yaa kula hadla mikrofoonka u dhiib ninkeyga jaha ku dhajin haweeney baangalaale cambaray hay dumaashiga qaaliya tawana ku xishmeeyay horta dadkiinan ka yimaada America iyo meelahaas ma garad waxaad ka dhigtaa dad wax kale ma tahay barakeysaan oo eegna ma noo jeedmiya America si hadii loo fiiriyo anagu baadiyihii joogna geelay waxaan dhaqaynaa beed ku qorxoon MashaAllah, and let me introduce you, Mazen. This is Oxalal, Habrishonix. I do my shiggy, or I could blow like what I could hear. MashaAllah. You mean MashaAllah? Alaikum salam to my sweater. Okay, هذا ما دام أنا سكولي معني وحنا حرينا ويرتان قلادي الشيء سينا وحسكو هذين جو كونفر أفريقيا سيدي أنا سو جو جوين برنامج كم دحوينا أنا لو مسهرو هاي بلا نوع السوبر نذيرو نذيرو كافي عمك عصبة بيجوا يرتاح مقعد واو هذا لو مقعنا على داس وكوجو عهم فارس كما كانت لو مقع الشيء قتالي يقول أي سوما ما أبا كوشك بدي ولا قصة تجي مجانا للشوجا حتى النذيرة باليرابة ما صوبا هي مقعد أسيب كتجي واهرة واو أنا عم برلو لقولي شيء ما كبدي شو جرته بالله هيا باي سات هذا كورن في عنت إنك صلعت لنا كذا ما سام باي لا عقني قبل ما نلقى بنطن ونيجو جرته هذا كنا يمتين ودقارة بشتينه هذا لو جرت معاه باي بارك فيميا مكاني أركب هاي ودي بلني كأغني كأغني ولا هذودونا يا سيا بالحالة وانا دير عذرو هنا دريورا وانا بدأت كسر هو وطنكي وكلوليا وكلنا شيء صح عادي ما waxaad ka timaadeen meel baraf ka daa South Africa aad iyo aad u qabow baa ka nimid South Africa ma baraf ka daa of course ay soo dhawow horta waxaan ku soo dhaweynayaa dhulkii baadiyaha u deganeen dhulkii waa nimid oo Africa baa location kula lawa soo gaday ay si aan waamu ugu taageero ay waa bal aawi ninka madaxweynaha ahaa
على مساك كيس هذا ميريا بلا مدحوينها سو دوينيا كما مدن مدحويني أليجي جاريد هذا سو هذا حاس كيس وارلمايو محاد كان ku gaartay madaxweyne waxaynu go'aan ku gaarnay sidaan hore ugu heshiinay awood qaybsigeenu hore ugu heshiinay wuxuu ahaa inaad madaxweyne noqoto way soo dhaaf anigana madaxweyne ku xigeen aan noqdo tikal haye sidaasna maamulkii aan maanta ugu dhawaaqno dadkii qurbihii jireen waan kuu keenay waa arkaa waad cadiyeen waa soo dhaweey geeli caanihii wixii ku soo dhaweey si wanaagsan marka maanta waxaan ku dhawaaqaynaa inaad tahay madaxweynaha maamulka Wamo State horta waa arrin wanaagsan waana arrin aad u qiimo badan waana arrin lagu farxo marka waxaad inoo sheegtaa si fiican wax qabadkaaga bal dadka hadda idaacadda laga dhageysanaya bal hadal waxaan ballan qaadayaa inuu marka koowaad dalka aqoon u yeelan doono waxaan ballan qaadayaa in guryaha iyo wadooyinkaba la dhisi doono waxaan ballan qaadayaa in haweenka ay noqon doonaan kuwa koowaad ee dalka xaqa ku yeesho waxaan kaloo ballan qaadayaa in waddanka ceer laga qaadan doono waxaan kaloo ballan qaadayaa waxaad ku dartaa mudane madaxweyne shanta sano soo socota ilmihii dhasha inay ceer qaadan doonaan ku tarayadana waxay maamulada hore u sameynayna sameynaynaa horta waddanku waxaa laga rabaa isbedel waa inuu isbedelaa waa in wadamada kale sida Jubbaland Puntland Khartoum State Galmudug Wamo State Wamo anaga weey inaan ka hormarno oo isku waxaysan garanayn horena isku arag waa inaan keenaa aad iyo aad soo dhawaada jaalaya markuu qofka xagga maray waa in la gartaa inuu ka yimaado Wamo State markuu qofka xagga marayo oo la arko socodkiisa iyo laafiyadiisa iyo quruxdiisa waxaa la rabaa in la ogaado inuu ka soo jeedo Wamo State qofka markuu dharkiisa qabo uu suudkiisa xirto uu taagan yahay markuu xagga taagay waa la dhaa Allah ilaahay ninka mujid ahaa Allah ilaahay ninka waa mise uu ka yimid waxaad kaloo u ballan qaadaa haweenka Soomaalidu hadaan anagu ragga kaliya xilka isku koobno si wanaagsan xurguf baan dhinaca kale ka soo yeereys moogtaa marka u ballan qaad jagooyin fara badan u ballan qaad horta intii 5 sano haweenku waa inay aqoonta bartaan luqadahana bartaan maadaama ay wadooyin badan u safrayaan ee macnaha ku tagayaan booqasho waa inay luqadda bartaan waa inay soo adkeeyaan waa inay isdhisaan waa inay macnaha waa inay muujiyaan inay yihiin dumarka Wamo State وحفلة روايتين انت سيكوكتا والماسكين. Okay, thank you guys. Had by Islamina. We love you all. Bye bye.
It's